xafladan ayaa waxa loo qabanayay 200 oo arday oo ka qalin jabisay jaamacadda Dah Al-Caalamiya waxa ayna barteen kulliyadaha shareecada iyo caafimaadka. xafladan oo ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dawladda federaalka Soomaaliya, wasiir ku xigeenka waxbarashada, xildhibaano iyo marti sharaf kale. waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Dah Al-Caalamiya Sheekh Abubakar Xasan Maalin ayaa ka sheekayay dadaalka ay gelisay jaamacadda Dah ardaydan waxa uuna u rajeeyay in ay wax ka bedeli doonaan siyaasadda dalka. laakiin siyaasadda wadankana dadka majaraha u qaban doona ay noqdaan insha Allah ta'ala. waxaan ardaydeena mar walba aan ku baraarujin jirnay oo aan bari jirnay in ay noqdaan dad kulmiya cilmiga diinta iyo cilmiga teknolojiyada casriga labadaba ay kulmiyaan si ummadooda ay ugu shaqeeyaan. waxaan ku wacyigelinay inay ka biroobaan afkaartii iyo fikradihii Mustafa Kamal Atatürk oo abuuray oo ahaa wadaadku inuu ku ekaado masjidkiisa iyo arrimaha nikaaxa inuu ku ekaado tahaarada inuu ka hadlo oo wadanka iyo siyaasadda uusan shaqo ku lahayn. afkaarta uu keenay Mustafa Kamal Atatürk islaamkana la haray in maaragtay aysan qaadanin bal ay yihiin dad u soo baxay siyaasadda inay qayb ka qaataan wadanka arrimaha bulshada inay ka shaqeeyaan sida diintaba markii horeba ay uga shaqeyn jireen. soo kale waxa isna ka hadlay Muuse Axmed Ciise oo ah isaguna baradhiga maadada shareecada ee jaamacadda Dah Al-Caalamiya. jaamacadda waxa hore uga sheekeeyay ra'iisul jaamaca Sheekh Abubakar Xasan Maalin ilaahay xarsiye marka naga kulliyadda shareecada hadda ugu badan tahay kulliyadda shareecada oo laga xiriijimay hadda wax laga xiriijiyay kulliyada kale sida caafimaadka oo kale laakiin kulliyadda ugu badan yihiin waa kulliyadda shareecada marka maadaama macmiilkeeda aad baan ugu faraxsanahay. ardayda soo kordhisa waxa kamid ah in hadda ay samayso maxkamad tababar ah oo maaragtay ardaydu ay ku sii tababartaan cadaaladda intaanay gaarin maxkamadda caadiga oo maxkamad la yiraahdo maxkamad Suuriya ay samayso. gabagabadii ayaa isna waxa ka hadlay wasiir ku xigeenka waxbarashada ee dawladda federaalka Soomaaliya Xamed Xali Xasan ayaa isna sheegay in ay tahay wax lagu farxo intan oo arday Soomaali ah oo ka qalin jabisay kulliyadda shareeca wal qaynuun. umurkan hortayda fadhiya dhalinyarada ee soo qalin jabiyay oo aad u dhiirigeliyay badan baa isku taagay tacliintii oo aasaaska wada walba aasaas u ah oo isku taagay oo maanta soo gaarsiiyay intaasoo jaamacadood inay ka hurmaan. hadday isku taagi lahayd intaasoo qofka qoyga qaadi lahayd oo ku shaqaysan lahayd oo isbaari dhigan lahayd. maanta waxay soo kordhiyeen nuur siyaada aljahlu dalaal cilmu nuur marka nuurkii baa maanta inta ka bacdi ayaa waxa la gudoonsiiyay ardaydii qalin jabisay shahaadooyin ka turjumaya in ay barteen kulliyadaha shareecada iyo caafimaadka. Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV magaalada Muqdisho.